habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh. qodobada aan caawa idin hayana waxa kamid ah Puntland oo heshay dokumentiyo muujinaya in xubnaha Daesh ee dhaawacma lagu soo daaweyn jiray maamulka Somaliland iyo qodob kale oo ah xogta weerar madaafiic ah oo lagu qaaday degmada Aadan Yabaal. intaan kula wadaagin warbixinadan oo faahfaahsan daawada wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto, subscribe dhahdo, muuqaalka like noo saarto, gambaleelkana furto si ay ku soo gaaraanin warbixinada maalinlaha ayaan halkan ku soo gudbino. haddii aan ku bilaabo, maamulka Puntland ayaa sheegay inay heleen dokumentiyo sir ah oo ay ka carareen kooxda Daesh, kuwaas oo lagu ogaaday in xubnaha Daesh lagu soo daaweyn jiray gudaha Somaliland. inkastoo maamulka uusan warbaahinta u soo bandhigin dokumentiyada uu sheegay inay heleen, haddana waxa uu tilmaamay in xubnaha Daesh qaarkood lagu soo daaweyn jiray magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland, kadibna ay dib ugu soo noqon jireen buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland. warqadahan ayaa laga helay deegaanadii ay kooxdu ka carareen, waxayna muujinayaan in dhaawacyada xubno ka tirsan kooxda Daesh lagu soo daaweyn jiray isbitaallo ku yaala magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland. sidoo kale warqadahan ayaa ku jira kuwa ay shirkado ganacsi alaabo ugu soo rari jireen kooxda Daesh, halka shirkado kalena ay lacag u soo diri jireen kooxda. dhanka kale waxaa haatan socda baaritaano dheeraad ah oo ay wadaanin maamulka Puntland oo lagu dabagalayo shirkadaha iyo isbitaallada la sheegay inay la macaamili jireen kooxda argagixisada ah ee Daesh ee ku dhuumaaleysata buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland. horey waxaa saldhigyo laga qabsaday Daesh laga helay lacago shilinka Somaliland ah iyo sidoo kale lacago shilinka dalka Hindiya ah oo shalay ciidamadu ay ka heleen goobo ay kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda Daesh ee ku dhuumaaleysta buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland. si kastaba ha ahaatee, Daesh ayaa laga sii tirtirayaa deegaanada Puntland iyada oo lagala wareegay dhul aad u tiro badan kadib howlgallo ay ku qaadeen maamulka iyo ciidamada difaaca Puntland. maanta in ka badan 80 argagixiso ah ayaa dagaal ku soo qaaday ciidamada Puntland ee ku jira howlgalka lagu ciribtirayo kooxda argagixisada ah ee Daesh, waxayna ciidamadu laayeen intii badnayd kooxdii dagaalka ku soo qaaday oo ay ciidamadu xogtooda awal hayeen. dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Puntland ku dhawaaqay wajiga saddexaad ee howlgalka Hilaac, kaas oo ay durba bilaabeen ciidamada Puntland, waxaana la filayaa in wajigaani uu noqdo kii lagu soo ciribtiri lahaa kooxda argagixisada ah ee Daesh ee ku dhuumaaleysata buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland. dhanka kale, faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay weerar loo adeegsaday madaafiic oo xalay lagu qaaday qaybo kamid ah gudaha degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. madaafiicdan ayaa la soo warinayaa in lala beegsaday saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay ku lahaayeen halkaasi. dhanka kale, faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay weerar loo adeegsaday madaafiic oo xalay lagu qaaday qaybo kamid ah degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. madaafiicdan ayaa la soo warinayaa in lala beegsaday saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay ku lahaayeen halkaasi, balse ma aysan geysan wax khasaare ah. ilo dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in Al-Shabaab ay madaafiicdan ka soo tuurtay duleedka degmada, kadibna ay ka hortag sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo halkaasi ku sugnaa. sidoo kale waxaa hawada sare lagu arkayay diyaaradaha dagaalka oo iyaguna dhaqdhaqaaq ka dhan ah Al-Shabaab ka sameynayay aagga degmada Aadan Yabaal, taasoo keentay inay kala firxadaanin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee halkaasi ku sugnaa. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaanin baaris ku aadan weerarkaasi, waxayna sheegeen inay soo qabteen dad tuhmayaal ah oo loo haysto inay hagayeen weerarka madaafiicda ahaa ee xalay lagu soo qaaday degmada Aadan Yabaal. xaaladda ayaa haatan degan, waxaana aagga degmadaasi isku fidiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa macawsleyda ah oo diyaar u ah inay deegaanadaas ka xoreeyaan kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. Shabeellada Dhexe ayaa maalmahan waxaa culays xooggan soo saaray kooxda Al-Shabaab oo dhowr weerar ka fulisay iyaga oo isku dayaya inay dib ula wareegaan deegaano horey looga saaray.